أنا بلعب الشيكوين كإيه بخيل كنيك اللي وانين بلشكست أو عالم كآه طيركه dadku ma jecla waa nin waliba dadku aad u haraamo waa nin lagu tilmaamo cadow ma aragan uu dhaqan meel kasta umadi degan tahay midba doontaa yeelato diintay doontaa ku jirto afkay doontaa ku wadasho meel ninkaasi uu ammaan ku leeyahay ma arag meel kastoo rag joogana dumar inaga hadane bakhayl waa ila daan weyne waa laga helayaa shantii nin meel jooga laba ka mid waa bakhayl raggaasi way sii kala jiraanoo darajooyin bay kala leeyihiin bakhaylada kuwa ugu sii daran ee liha gacantiigooda ee dhaqanka maanta dhallinyaraduna ay ku tilmaamaan feedhiyahanka ee labada gacmood baa ay xidhan yihiin rag ah oo saddexa ayaa magaalada ku wada noolaa raggaasi weliba rag hodan ay ahaayeen oo ilaahay hanti u dhiibay masaakiinta magaalada degan baa xitaa baratay oo aan dawarsan jirin iyaga oo markay ku soo baxaan dhaafi jirin waa laga quustay in cid wax ka qaato ka qaado wax ayaa la waayay maalintii dambe ayaa saddexdoodii maalin jimcaha oo masaajidka ku wada tukadeen ayay ka soo wada baxeen saddexdii mid ka mid ah labadii kale u yeedhay oo isagu markaa canaantay weli waaryaale bulshadii ka dhex baxnay tolkay deeraynu ka nahay mujtamacaan la noolayno dham way inaga quusteen xitaa masaakiintiba ina dawarsan weydii ilaahayna xoolahan uu ina siiyey way nagu imtixaanaya waa heedhaan isu dhaano oo dadkan walaalaheena ee inoo baahan ee ehelkeen iyo masaakiin iyo jaarba leh aynu wax taro labadii kale waa hadal wanaagsan waanu kaa sugaynay midkaa ninkiibaa wuxuu yidhi waxaynu u baahanno keliya saynu gacanteenna u bari lahayn inay jeebka wax ka soo saartay miskiinsiiso arrintaa ma haysaa balgeesinimada iyo wadnaha inaynu yeelno kii markii hore hadlaydhada waxbixisaana doonayni waynu soo tashanaynaa kula mid baan ahaye jimcaad dambe halkaan isku nimaadno nin walba isagoo khidada wax ku bixin lahaa soo sameeyey markii saddexdooda bay soo yimi jimcii dambe salaadii markay soo baxeen meel gooniya soo la soo baxeen kii maalintii talada keeda ala haya si aynu wax ku bixin lahayn soo wax ku bixin lahayn waan hayaa bakooradiisu tuu wareejiyey dhulku wareejiyey lacag buu soo saaray markaa lacagtii qadaadicda ahayd baa berigaa socoto shilimaad iyo waxaas malaa dhalinyaradu garanmaysa lacagtaasi lacag ka samaysan maarbaheed oo abagoo kuuskuusuro shilimaad liyo lacagtii buu soo saaray xantooba muged wuxuu ihi saasaynu u daadinaynaa saa markaynu u daadino ma wixii ku dhaca wareegga gudihiisa mise wixii bannaanka ku dhaca aseen midba wixii wareegga gudihiisa ku dhaca innagaa leh wixii bannaanka ku dhacana masaakiintaynu siinaynaa gacantii buu sare u qaaday wixiiba wuxuu ku daajay meesha dhexdeedii mid kale ayidhi daalin baa tahay inaad wax bixisaabana doonayn wixii baa soodigaan ku daajay ma waar naga tag waxba bixin mayse annagaa hayna nidaamkii lagu bixin lahaaye xariijin buu jeexay markaa kii xariijin ayuu saa u jeexay dheh wuxuu yidhi waa taa lacagtii ma wixii midigta u daata xariijintaa midigteeda mise wixii bidixda ku daata misal midba wixii midigtaa ku daata aniga bixin maayo waa waxaygii wixii bidixda ku daatana masaakiintaada saru u daadiyey markaa wuxuu ku wada daadiyey midigta kii saddexaad baa war naga taqaladay kugu dhacday adkii baaba ku dhaamee soodiga wixii baa halka ku daadsaday anaa idinka wanaagsan buu lacagtan inaad bixisaanna dooni maysaan bakhayliin cadow waana tihiin anigana way soo lugoyseen nidaamkaynu ku bixinayna adii sheegay mise waa maxay lacagta saraynu u daadinayna ma wixii dhul ku soo daata mise wixii erka ku hadha masaan midba wixii dhulka ku soo daata bixin mayno wixii erka ku hadhayn masaakiinta siinayna lacagtii buu sare u daajay ma shilimaad baa erka ku hadhaya way soo wada daateen saddexdii bakhayl iyo taladoodii waxbixintu waa geesinimo